diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aaba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta kun shilin aaba ii keen buu kiri kun shilin dhididkaaga raba inaan cune ku yaro ciyaal magaalo waligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uu ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooyo kun shilin isiiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saas u eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan kunkii shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa kun shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay oo amaanka way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo tago hooyo kun shilin isiiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheegaa ha aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqo ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo kun shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma maya aabba tani tii hore way ka duwan tahay buu tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa